بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta taariikhdu tahay 26 bisha Maarso sanadka 2022 madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa madaxtooyada qaranka ee Villa Soomaaliya waxa uu kulan kala qaatay taliyayaasha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed ee militariga, booliska, asluubta iyo nabad sugidda oo ay wehelinayeen gudoomiyaha gobolka Banaadir mudane Cumar Maxamuud Maxamed Filish iyo ku-xigeenkiisa arrimaha amniga iyo siyaasadda oo uu kala hadlay adkeynta amniga guud ee dalka iyo kan gaarka ah ee caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa ka dhageystay talisyada booliska iyo nabad sugidda Soomaaliyeed warbixin ku saabsan baaritaanada hordhaca ah ee ciidamadu ay ka sameeyeen weerarada argagixisanimo ee ka dhacay toddobaadkii la soo dhaafay magaalooyinka Muqdisho iyo Beledweyne, isaga oo faray laamaha ammaanka kala duwan inay ka xoojiyaan feejignaantooda maadaama dalku uu ku jiro xilli doorasho ayna nagu soo wajahan tahay bishii barakaysneed ee Ramadaan oo sanadihii la soo dhaafay ay ku guuleysatay dowladdu ka hortagga iyo yareynta dhagarta argagixisadu ay soo maleegi jireen bishan. sidoo kale madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu kala hadlay taliyayaasha ciidamada qalabka sida muhiimadda ay leedahay in askarta iyo ciidamada kala duwan ee dowladdu ay u dhibriyaan shacabka xilliyada lagu guda jiro sugidda ammaanka guud ee dalka, taas oo u baahan wada shaqayn iyo sidoo kale isku xirnaan bulshada iyo ciidamada. waa mahadsantihiin.